يدي وقامي بثان إن بدن سومالينا هاي بيوقوب على ودا إشي وقامي بثان إن بدن عداده فري هنانكا سبيادا هرسيداي عداهي ميلادا لهايو عدن بادا بايس كنتي waxaa farxad weyn noo ah inaan maanta inala joogno inay dhageysano dareenkiina maqalno dhaayaheena ku aragno saaxo iyo baahideeda iyo waxa ay qabsatay waxaan marka ugu horeeyay uga mahad celinayaa bulshada reer saaxo dadaalka iyo isku tashiga ballaaran ay qabatay iyo waxyaabaha caamka ah oo ay ka qabatay degmada oo xaruntan hadda aan joogno oo xaruntii degmada ah iyo mashaariicda kaleeto oo isku tashiga ku dhismay waad ogtihiin 6 sano ka hor markii Puntland ay degmo ku dhawaaqday dadkii markaa joogay kuwii yimid intay la ekeed waa ogeedeen wanaagga ugu weyn oo dawladnimada ka hesheen waxa ka mid in idinkani la dhiirigeliyo oo la yiraahdo degmaatihiin wax qabsada waa wax weyn maamulka iyo dawladnimadu waa wax aad idinku leedihiin wax iniga maqan oo wax ka sugaysaan ma waa maamulka dawladnimo waa idinka iyo inta kale oo iniga maqan oo walaalihiin oo ku tashada inay wax qabsadaan oo ugu horeysa inay nabadooda ka shaqeeyaan iyagu isnabadgeliyaan wanaag ku wada noolaadaan waxa caamka ah wada qabsadaan nin walbana wixii uu qabsan karo gaarka uu qabsado waxa inta dheer dawladda Puntland waxa ay muddada ka dambeeyay ay mashaariic ka qabatay oo ugu horeysa dhinaca nabadgelyada in magaaladan laga taageero oo dadkeedu ay xasilooni ku noolaadaan oo mashaariicda asaasiga ah wixii la kari karo la qabto wax weyn ayaa ka qabsoomay waxyaabaha dawladnimada saldhigga ugu ah oo runtii dawladdu ay xoogga saarayso waxa ugu horeeya in la helo booliiskii in la helo maxkamadihii in la helo deegaanka maamulkii muddada yar ay saaxa jirtay marka run loo hadlo degmooyin badan oo Puntland ku yaal ayay ka horumarsan tahay kartidaas iyo wanaaggaas qabsateen waa iniga mahad celinaynaa waanu ku faraxsannahay inaan soo aragno